guriga uu geeyay waxa la siiyay biyo say noo sheegtay biyaas waxa daraagas baa loogu daray dibadna way miir doorsoontay xilligaas markaa ku sigaynanto xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in tacaddi loo geystay inan magaceeda la yiraahdo Nimco oo ku nool magaalada Caynabo ee xarunta gobolka Saraar haddaba sheekada idantaas ama war-saxaafadeedkaasi xarunta xuquuqul insaanka soo saartay waxaan ka wareysan doonaa gudoomiyaha hay'adda xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland Yasmin ugu horeyn Yasmin ku soo dhawo MTV bal sheekada iyo nuxurka war-saxaafadeedka nooga warbixi war-saxaafadeedkaas wuxuu ku saabsan yahay arrin tacaddi ah oo kufsi ah oo loo geystay inan 16 jir oo Caynabo ku nool oo la yiraahdo Nimco Jaamac Xasan inantaas waxay ka cabanaysaa inay tacaddi kufsi kula kaceen laba nin oo ciidanka Soomaaliland ka tirsan oo magacyadoodu kala yihiin Xasan Ismaaciil Gacmo Yare oo ah taliye qaybeedka Caynabo iyo Mustafa Yusuf Diiriye Karaag isaguna wuxuu ka tirsan ciidamada marka labada nin bay ka cabanaysaa oo inantaas ay ka cabanaysaa inay kufsi u geysteen markay u cabatay laamaha amnigana inanta wax loo qabtay ma jirto kiiskeedana lama diiwaan gelin oo lagama qaban baabashadeedii marka cadaalad baan u dalbaynaa inantaas inay hesho way marka kufsiga soo geysteen iyagu siday noo sheegtay horta xaruntu way booqatay inanta way la kulantay inantii eheladeedaba xogta way baadhay way la kulantay inanta cabanaysa Caynabo aan kula kulanay marka inanta iyo eheladeedba say xarunta la wadaageen falku 2 jeer ayuu dhacay wuxuu ka kala dhacay Caynabo iyo Og inanta marka hore Og bay tagtay hawl ay dan ay u lahayd bay u tagtay inay soo noqotay ku tiri jirtay marka labadan nin ciidanka ka tirsan mid ahaan ayaa qaaday oo dadkan ku shaqaysta gawaarida yar ee bajaajta leeyahay inuu soo celiyay xilligii marka ay ku heshiiyeen inuu soo celiyo dabeetana soo celintii halka ka soo celin lahaa magaalada Caynabo ku soo celin lahaa ay goob kala u geeyay marka waa goobta kufsigu kaga dhacay sida anaga noo sheegtay in la wadaagtay marka guri baa la geeyay gurigaas ay inanta marka kufsiga lagu geystay waxay sheegaysan waxa uu geystay taliye qaybeedka ninka Xasan Ismaaciil Gacmo Yare leeyahay ayaa u geystay mar labaad waxa uu geystay inta dhexda la soo socday markii dambe ay dhexda soo socdayna waxa ay kufsi u geystay Mustafa oo aad ninkan imka iyada markii hore qaaday markuu soo celiyay magaalada ku soo celiyay guri oo taliyuhu degan yahay Caynabo ka degan yahay ayaa hadana kufsi loogu geystay marka habeenkii oo dhan ayuu inta falkaas ku dhacay marka siday xarunta la wadaagtay u sheegtay aan xogta ku hayno walina kiiskeeda inanta waxba looma qaban kiisku wuxuu dhacay 4 bisha ilaa 5 bisha habeennimadii oo dhan ayuu socdo waqtigii waxa soo galay marka hore 4 bisha inanta ay magaalada ka tagtay Caynabo Og tagtay habeenimadiina oo ilaa 5 bishuna marka ay soo galayso adoo intii u dhaxaysay 5 bisha iyo 4 bisha iyo 5 bisha ayuu kiiskaas inanta ku dhacay sidoo kale waxa jirtay inanta waxay ka cabanaysaa markii guriga la geeyay oo Mustafa ay hayd inuu soo celiyo guriga uu geeyay waxa la siiyay biyo say noo sheegtay biyaas waxa daraagas baa loogu daray dibadna way miir doorsoontay xilligaas markaa ku sigay inanta uu ku dhacay ilaa habeenkii oo dhan way miir doorsanayd 3 jeer ayaana kufsi ku dhacay waa 2 jeer oo ay sheegayso inuu ninka taliyuhu geystay iyo mar ninkan kale ciidanka isaguna Mustafa markii hore qaaday kula kacay marka labada goor ay ku dhacay 3 goor kufsi ku dhacay oo waa mar dhexda ay soo socdeen oo Caynabo ku soo socdeen mar oogay hadiye mar Caynabo lafteeda ay ahayd marka inta tacaddi badan bay tirsanaysaa walina laamiha amniga waxba kama qaban cidii xusuusay tahay dacwada in loo gudbiyana looma gudbin waxa kale oo jirta qofku xaq wuxuu leeyahay hadduu cabasho cid ka cabanayo cid laga cabanaya marka haday tahay cid baawar haysa inaan baawarka laga gabanado qofka xaq uu leeyahay cabashadiisa in loo dhageysto dastuurkana wuxuu ina farayaa iyo dhaqankan iyo diinteeniba inaan lagu kala sareyn xagga xuquuqaha iyo maadaama dad islaam oo musnadiin haystaan nahay inayna lagu kala sareyn sharciga hortiisa marka in cadaalad hesho ayaan dalbayna wax kale oo farayna cid kasta ay khusayso inay inta arinteeda wax ka qabato lana dhageysto cabashadeeda ama marka loo helo
waxay ka cabanayso amaba ha lagu waayay laakiin in la dhageysta horta marka hore ka horeysata kiiskeedii la furo. inantu markaa maxay ku sugan tahay? Caynabay ku sugan tahay, caynabay marka horeba ku nooshay inantu.